Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabta channelkeena Maida Kartuun. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, like saar. Haddaad nala joogtayna waad mahadsan tahay. Like-ta ha naga baqiilin, lacag ma ahan. Maanta waxaan idiin hayaa asxaabteyda sheeko cusub ee kusoo dhawaada. Beri baa waxaa jiri jiray boqorkaasi wuxuu dhalay 12 gabdhood. 12kaas gabdhoodna aad ayuu u jeclaa, wax walbana wuu u sameyn jiray. Mar walbana gabdhihiisa aad ayuu uga fikiri jiray, wuuna ilaalin jiray, waayo wuxuu ka ilaalin jiray ragga. Guriga ay seexdaan ama ay degan yihiin kor ayuu uga xiri jiray. Subaxiina wuu ka fikiri jiray, aad ayuuna gabdhihiisa u jeclaa, wuuna ka taxadari jiray. Laakiinse nasiib xumo, maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabdhihii wuxuu arkay kabahoodii oo go-an. Subax walbana wuxuu u soo iibin jiray kabo cusub. Laakiinse arrintaas ayay ku noqotay fikir aad u weyn. Boqorkii wuxuu dhahay, talow sidee ku dhici kartaa inaan maalin walba kaba soo iibiyo, kabihiina ay go-an yihiin? Gabdhahayga meel ma aadaan, laakiinse waxa kabahooda gooya ayaan la yaabanahay aniga. Gabdhihii ayuu iskugu wacay, aabba maxaa kabihiina sidaan u jarjara mar walbo? Subax walbo kabo cusub ayaan soo gadaa, kabihiina way go-an yihiin. Arrintaani caqabad weyn ayay ku noqotay boqorkii, oo uu ka saaxan waayo, wuuna ka harsan waaye. Guri uu xiro habeenkii, subaxina uu furo aroortii. Sidee ku dhici kartaa gabdhahan inay kabahooda go-aan? Kabahana meel lama aadaane. Laakiin boqorkii wuu saaxan waaye, habeen iyo maalin arrintaas ayuu ka fikiri jiray. Subaxii markuu u tago gabdhihii sidii ayay u hurdaan, guriga wax isbedel ma laha, rag uma yimaado, kabihiina way go-an yihiin. Taasi macquul ma aha. Boqorkii arrintaasi ayaa waxay ku noqotay mid qalbigiisa aad u xanuujiso. Wuxuu isugu yeeray shaqaalihii oo dhan. Wuxuu ku yiri, waxaan rabaa inaan arrin idin diro, aad soo ogaatiin. Gabdhahayga kabahooda waxay la go-an yihiin, inaad soo ogaatiin ayaan rabaa. Qofkii soo ogaado arrintaasi gabar ayaan siinayaa, oo wuxuu ka mid noqonayaa boqortooyadan. Wiil ayaa yiri shaqaalaha ka mid ah, aniga ayaa arrintaasi soo ogaanaya, ee boqorow aniga iyo xilsaar. Wiilkaasi ayaa arrintaasi loo diray. Wuxuu bilaabay guriga gabdhaha ay degan yihiin guri kasoo horjeeda inuu saaxdo. Laakiinse gabdhaha aad ayay u aqli badnaayeen, waxay siin jireen cabitaan iyo khamro ugu dareen si uu u saaxdo. Gabadhii ugu weyneed ayaa waxay u keentay wiilkii cabitaan. Waxay ku tiri, walaal cabitaankani cab. Waa mahadsantahay ayuu ku yiri. Wiilkii cabitaankii ayuu cabay. Kadibna dee cabitaanka khamro ayaa ku jirtay. Wiilkii sidaasi ayuu ku gamay. Gabdhihiina howlahoodii ayay halkaasi ka bilowdeen markay arkeen inuu wiilkii uu hurdo ama uu saaxday. 3 bari kadib boqorkii ayaa u wacay wiilkii, maxaa war ayaad haysaa? Laakiinse waxba muusan haynin, wuxuu ahaa nin iska jiifo oon waxba ogeyn. Boqorkii aad ayuu u carooday. Warheedha maxaa qabanaysa? Wuxuu yiri, gabdhaha cabitaan ayay ii keeni jireen, laakiinse ma aqaana. Kadibna waa la qabtay wiilkii oo xabsi ayaa loo diray. Sidaasi ayaa lagu ciqaabay. Laakiinse waxaa jiray nin kale oo askari ah. Kadibna wuxuu soo maray islaan tuugsanaysa. Islaantii ayuu xoogaa lacaga u watay ayuu siiyey. Markaas ayay waxay ku tiri, waxaan kuu sheegayaa arrin sir ah. Waxaa jira boqor halkaan degan oo gabdhihiisa kabaha ka go-aan. Gabdhahaasna waxay aadaan meel xaflada habeenkii ama meel lagu ciyaaro. Kadibna inaad soo ogaato ayaa fiican si aad boqortooyadaas uga mid noqoto. Kadibna wiilkii halkii ayuu soo aaday. Waxayna soo siisay maro uu gashanayo oo cidna aysan arkaynin. Kadib wiilkii boqorka ayuu u yimaaday, wuxuuna ka codsaday inuu arrintaani asaga uu qaban karo, oo arrintaani faraha laga saaro, uuna gudan doono waajibkii loo dhiibtay. Kadibna boqorkii wuu ku ogolaaday codsigaasi, wuxuuna yiri, haddaa kasoo bixi weyse ciqaab ayaa ku marsiinaya. Laakiin sidii si lamid ah, gabdhihii waxay u keeneen biyihii khamrada lahaa ama cabitaankii khamrada ay ku dareen. Laakiinse wiilkii wuxuu soo xasuustay islaantii hadalkeeda oo ku tiri, biyaha khamro ayaa ku jira, ha cabin. Haddaad cabto waad seexanaysaa, waxna ma ogaan doontid. Laakiinse muusan cabin biyihii oo asaga waa looga digay. Gabdhihii way u yimaadeen inay fiiriyaan inuu cabay biyihii oo uu saaxday. Laakiinse asaga wuxuu iska dhigayay mid hurdo ama jiifo.
laakiinse ma uusan seexanin oo gabdhaha ayuu iska qarinayay. Gabdhihii dhar qurux badan ayay xirteen, aad ayay u labisteen, way isdiyaariyeen, make up ayay marsadeen. Wiilkiina wuu iska jiifaa, kadib way soo yara qooraansadeen ayagoo fiirinayo inuu hurdo. Kadibna way baxeen oo waxay ka bixi jireen meel guriga hoostiisa ka duleesho. Wiilkiina wuu u fiirsaday gabdhihii, wuu dabagalay. Wuxuu arkay gabdhihii oo aad u qurux badan oo isdiyaariyeen, oo mid walbo muraayada hortaagan tahay si uu u ogaato labiska inay kusoo baxday. Halkii guriga ka duleeshay oo hoos looga baxayo jaraanjarada lahaa ayay gabdhihii galeen si ay u baxaan. Laakiinse asagii muusan ka harin, maradii islaanta ee soo siisay oo qofkii gishta aan la arkaynin ayuu gishtay. Kadibna gabdhihii markay ka daadegeen jaraanjarta ayuu wuxuu bilaabay inuu dabagalo ayaga oo arkaynin, waayo asaga wuxuu wataa mara aan laga arkaynin ayuu xidhay. Gabdhihii markay daadegeen waxa ugu horeysay midii ugu weyneed, waxaana ugu dambeysay midii ugu yareed. Midii ugu yareed ayuu daba socdaa, kadibna wuxuu kaga istaagay marada. Markaas ayay waxay tiri, alla maradeeda qof ayaa ku istaagay. Midii weyneed ayaa ku tiri, abbaaya adiga ayaa shakiyo, wax kugu istaaga ma lahe inakeen. Maya ayay tiri, waxbaa igu istaagay. Kadibna gadaasheeda ayaa la fiiriyay, ciddaba socotana maysa jirin. Sidii ayay ku baxeen, waxay gaareen duurka meel aad u qurux badan. Halkaas ayay sii socdaan, laakiinse weli waa la daba socdaa. Wuxuuna halkaas ka goostay caleen geed ku taala si hadhow ay ugu marqaati noqoto. Si ay u socdaanba gabdhihii quruxda badnaa oo boqorka dhalay oo sida ogaanta u labisnaa, waxay bilaabeen inay hoos u sii daadegaan duurka dhexdiisa. Waxayna gaareen meel kayn ah oo aad u qurux badan. Laakiinse ninkii askariga ahaa oo ilaalada ahaa wuu daba socday gabdhaha si uu u soo ogaado xaaladooda. Mar walbana wuxuu goosanayay geedaha caleemahooda dhaymanka u eg kuwa quruxda badan si ay hadhow marqaati ugu noqdaan. Waxay socdaanba gabdhihii waxay gaareen meel webi ah ama bad ah, biyo ah. Kadibna waxaa u yimaadeen wiilal boqorha ah, kadibna waxay koreen doomankii. Halkaas ayayna kasii dhaqaaqeen, laakiinse asaga muusan ka harine wuxuu la fuulay doontii si uu u soo ogaado meeshan muhiimadda ay ugu socdaan. Midii yareed doontii ee kortay ayuu fuulay, laakiin cid arkaysa ma jirto, waayo asaga wuxuu qabaa weli maradii aan qofka laga arkaynin. Gabdhihii sidaas ayay doontii ku raaceen, waxayna tageen gediga kale ayay u dhaadhaceen. Waxaana la socda wiilashii, gabar walba wiil saaxiibkeed ayaa la socda. Waxayna tageen guri aad u qurux badan, halkaasi oo ah meesha showga lagu qabto oo lagu ciyaaro ee gabdhahaas habeen kasta dhaansiga ama ciyaarta u aadaan. Kadibna meeshii ayaa la gaaray, gabdhihiina waxay bilaabeen iyo wiilashii inay ciyaaraan, iska baashaalaan. Laakiinse wiilkii ilaalada ahaa mar walba asaga uu daba socdaa. Gabadhii yareed agteeda ayuu istaagay, ciyaartii ayuu iska fiirsanaya, iska daawanaya. Halkaas waxaa lagu cabaayay qamro. Qof walba kuumkiisa qamrada ayuu haystay, wuxuuna bilaabay inuu gabadha yarta ah qamrada la cabo. Sidee ahaataba qamradii ayuu gabadhii yarta la cabo. Waxay tiri, qamradii qaar baa layga cabinaa, adiga waxaas ma ahane, adiga ayaa u maleeyay unbaa mar walba lagu dhahaa. Kadib ciyaartii ayaa dhammaatay, koobkiina wuu soo qaatay, way soo baxeen. Waxayna yimaadeen dhinaca gediga kale doomankii markay soo raaceen. Kadibna sidaas ayay ku soo baxeen oo waxay soo aadeen dhanka gurigii, duurkii ayay soo mareen. Kadibna jaraanjartii hoos ku taallay ee mar walba ka bixi jireen ayay ka soo galeen. Gabdhihii oo sidoodii u labisan, laakiinse nasiib wanaag kabihii way go-an yihiin oo waayo xalayto dhan ayaa lagu dhaansi gareynaya ama lagu ciyaarayay. Waxaa la soo gaaray markaan gurigii ayaa la soo gaaray gabdhihii. Habeen kastana gabdhaha sidaas ayay u bixi jireen. Ninkan askariga ahna wuu raaci jiray, laakiinse ayaga maysan arki jirin. Waxay xaaladda sidaas ahaataba oo hoggaas guriga hoostiisa ku yaala laga baxaba, yarkii askariga ahaana halkaas ayuu iska seexan jiray. Ayaga waxay u malaynayaan inuu quurinayo uu jiifo, laakiinse asaga muu jiifin. Habeen kasta wuxuu ka hayay gabdhahan waardiyo si uu u ogaado meesha ay aadaan habeen kastana sidaas ayuu u dabageli jiray. Ayagana war maysa ka haynin, waxay u moodaan biyihii qamrada ahaa uu siiyey inay ku hurdaan,
laakiinse asaga ma hurdo oo gabdhaha ayuu waardiya ka hayaa. Jaraanjartaas ayay haddana kasoo galeen, kadibna gurigii sidaas ayay ku yimaadeen. Boqorkii ayaa wiilkii u wacay 3 bari kadib. Warheed, adiga maxaad haysaa? Mise meesha la gooyo ayaad u jiiftaa? Maya boqorow, aniga waxaan kuu hayaa gabdhahan habeen walba qasriga hoostiisa god ku yaala ayay ka baxaan, waxayna aadaan. Aniga waxay moodaan inaan jiifo, laakiin aniga ma jiifin. Biyaha ay isiyaana ma cabbi jirin. Waxayna aadaan meel lagu ciyaaro oo dance, waxayna la kulmaan wiilal. Gabar walbana saaxiibkeed ayaa halkaas joogo ee la kulantaa, halkaas ayayna dansiga ku bartaan. Boqorkii wuxuu dhahay maxaa cadeen oo ii haysataa? Wiilkiina wuxuu tusay caleemihii geedaha uu kasoo jiray si ay ugu noqdaan cadeen ayuu tusay. Boqor, cadeentaas ayaan ku hayaa aniga, waayo geedahan waxay ku yaalaan qasriga markii laga baxo meel cabaar u jirta, gabdhahana halkaas ayay maraan. Gabdhihii ayuu boqorkii weydiiyey, arrintaasi run miyaa aabo? Iyagoo oo indhaha taagaya aad u naxsan. Haa aabo, naga raali ahaa, iska gaaya cafi, arrintaasi waa run. Boqorkii wuu yaabay. Wiilkiina wuxuu ku abaalmariyey inuu siin doono gabar sidii horey uu uga ballan qaaday. Kadibna wuxuu ku yiri, wiilkayga waad mahadsantahay maadaama aad soo baartay sirtan aadna soo ogaatay. Haddana waxaan ku siinayaa gabadhayga mid dooro. Wiilkii wuxuu doortay gabadhii weyneed, sidaas ayaana loogu dhigay aroos qurux badan. Sidaas ayuuna ku guursaday gabadhii, wuxuuna ka mid noqday wiilkii boqortooyada. Gurigaasi ayuu ka mid noqday 25 sano kadibna wuxuu noqday boqor asagii. Asxaabta, halkaas ayay sheekadeena ku dhamaatay. Fadlan haddaa ka heshay channelka subscribe saar, like saar, share dheh, aad ayaad u mahadsantihiin.